halkan waa galka miidiya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xeelad siyaasadeed oo cajiib ah ku soo bandhigay xerada Afisyooni oo u dhow xayndaabka ay siyaasadda ku kala furfuraan xubnaha beesha caalamka. maxaa ka jira in Farmaajo uu guul weyn ka gaaray shirka? ma dhabba in madaxweyne Farmaajo uu dhabarka ka jibiyay Axmed Madoobe iyo Saciid Deni? yaa ka dambeeya xeeladda uu adeegsaday Farmaajo? maxay tahay caqabadaha hortaagan shirka? yaa sugaya amniga nawaaxiga xerada Afisyooni? ma dhabba in Gorgor iyo Haramcad ay cabsi geliyeen Deni iyo Axmed Madoobe? haddaba daawade waxaan halkan kugu soo gudbinaynaa xog kooban oo ku saabsan goobta shirka lagu qabanayo. fadlan daawade muuqaalkan haddii uu ku soo gaaro share oo hadda share ku qabo. sidoo kale waxa aad subscribe inoo saartaa channelka galka media si aan halkan kugu soo gudbino xogo muhiim u ah dalkeena iyo sidoo kale dadkeena, annaga oo ka fogaanayna wax kasta oo dib inoo dhigi kara, sidoo kalena ka qayb qaadanayna dib u dhiska dalkeena. nagala qayb qaado. teendhada ku taalla Afisyooni ee garoonka ciidanka cirka ayaa waxaa ka dhacday doorashadii 2017 lagu soo doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waana halka sidoo kale lagu caleema saaray madaxweynaha. waxaa horey halkan uga dhacay kulamo u dhaxeeyay madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada iyo sidoo kale shirar kale oo caalami ahi. waa goob amnigeeda si weyn loo ilaaliyo, waxaana amniga xaruntan gacanta ku haya ciidamada AMISOM oo ku sugnaa halkaas tan iyo markii ay soo galeen gudaha Soomaaliya. waxa ay ku taallaa xerada Xalane oo saldhig u ah ciidanka nabad ilaalinta ee AMISOM, xafiisyada qaramada midoobay iyo safaaradaha wadamada reer galbeedka qaarkood. maxay yihiin ciidanka Haramcad ee wadna xanuunka ku reebay Deni iyo Axmed Madoobe? Haramcadku waa ugaarsade halis badan oo ku nool kaymaha iyo hawdka, waana ugaarsadaha ugu orodka badan ee laguna yaqaano xoog iyo xeelado cajiib ahi. inta badan howlgalladiisa ugaarsiga waa ay guulaystaan oo guuldarradiisu waa dhif ama maba dhacdo. ugaarsaduhuna waxa uu caan ku yahay xawaaraha iyo gaadmada uu ku soo gacangeliyo hadba kan uu ugaarsanayo. markii duurjoogtu maqasho ama ay dareento gaadmada Haramcadka, naxdin awgeed bay dhaqaaqi waayaan oo tallaabada gaaban sidaasi buu ku qabtaa kagana adeegtaa. Axmed Madoobe iyo Deni ayaa laga qaaday ciidamadooda, waxaana haatan soo wajahday cabsi iyagoona raadinaya goob ay markaasi ka baxsadaan. xog ay heshay galka media ayaa sheegaya in Deni iyo Axmed Madoobe 4 dhinac laga dhigay ciidamada Gorgor iyo Haramcad. dhanka kale dowladda Turkiga ayaa diyaarad nooca militariga waxa ay dabaabaad dagaal ay ka soo dejisay garoonka caalamiga ah ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. cabsi gelin ayay dadka qaar u arkeen hubkaasi in la keenay magaalada Muqdisho iyo waliba in lagu wareejiyay dowladda Soomaaliya. warar ayaa sheegaya in diyaaradaha amiiga ee loo yaqaano ay ku jiraan dabaabaadka dagaalka ee Turkiga ka soo dejiyeen Muqdisho. si shaacsan dowladda Soomaaliya ugama aysan hadlin saanadaha military ee xamar la keenay oo xukuumadda Ankara ugu deeqday Soomaaliya. ciidamada Gorgor oo tababar ku soo qaatay gobolka Isbaarta ayaa la sheegay in laga soo dejiyay maalmo ka hor garoonka magaalada Muqdisho ee Aadan Cadde. warar la ogaaday ayaa sheegaya in saanadaha hubka ee rasaasta iyo gaadiidka dagaal isugu jirta lagu qalabayn doono ciidanka tababarka soo qaatay. maalmihii u dambeeyay in ka badan 1000 askari oo ka tirsan ciidamada Gorgor ayaa dib ugu soo laabtay Soomaaliya, kuwaasi oo tababar ku soo dhameystay dalkaasi Turkiga. wararka qaar ayaana sheegaya in 1500 oo askar kale laga qaaday magaalada Muqdisho, kuwaasi oo la doonayo in lagu soo tababaro dalka Turkiga. cabsi iyo jahwareer ayaa wali ka taagan inuu furmo shirka la filayo in madaxda dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay isugu yimaadaan. beesha caalamka ayaa tan iyo intii ay guul daraysteen shirarkii hore loogu baaqay waxa ay wadeen dadaallo ay isugu soo dhaweynayaan dhinacyada kala irdhaysan. wakiilada beesha caalamka ayaa waxa ay wadeen kulamo ay la qaadanayaan hogaamiyaasha kala duwan ee Soomaalida. sidoo kale beesha caalamka waxa ay markaasi taageereen shirka uu ku baaqay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shalay lagu waday in uu ka furmo magaalada Muqdisho, walow si hor u dhac ay u kulmeen madaxda dowladda taabacsan iyo gobolka Banaadir. cadaadiska ugu weyn ayaa waxa wada sida muuqata dowladda Mareykanka. bayaankii ugu dambeeyay ay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ay soo saartay
ayaa waxaa madaxda loogu baaqay in shirka furmaya xal ay ku gaaraan. bayaanka ayaa sidoo kale loogu sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay haatan doonayaan in la qabto doorashada. Mareykanka waxa uu madaxda maamul goboleedyada ku amray in Muqdisho ay ku sugnaadaan tan iyo inta laga heshiinayo hanaanka doorashada ee Soomaaliya. shirka shalay lagu waday in uu ka furmo magaalada Muqdisho waxa uu ku soo beegmayaa xilli dhinacyada ka qaybgalaya ay isku khilaafsan yihiin arrimo badan. arrinta gobolka Gedo ayaa ka mid ah qodobada ugu adag ee lagu wado inay ka wada hadlaan madaxda Soomaalida. qodobadan ayaa hore la isugu mari waayay isla markaana sabab u noqday in natiijo la'aan ay ku soo dhamaadaan shirar hore oo la qabtay. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ku adkeysanaya in maamulkiisa lagu soo wareejiyo gobolka Gedo si halkaasi ay doorasho uga dhacdo. waxa uu sidoo kale madaxweynaha Jubbaland ku baaqayaa in dowladda federaalka ay ciidamada geysay gobolka Gedo ka soo saarto. dhanka kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay ku adkeysanaysaa in ciidamada dowladda ay yihiin ciidamo qaran oo aysan gobolkaasi Gedo ka soo saari doonin. gobolka Gedo ayaa waxa dhowr jeer uu dagaal ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka Jubbaland. qodobada kale ee muhiimka ah ayaa waxa ka mid ah arrinta ah qaabka loo maamulayo iyo cidda maamulaysa doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi.